Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kulanti waxaana wanaagsan kusoo dhawaada summitpro.com ee laga barto cilmiga kombiyuutarka. Waxaan kusoo jirnay duruuseen iyo taxanaheeda aan ku baranaynay Adobe Photoshop. Darsigeena maanta waxaan ku qaadan doonaa qaabka loo bedelo Adobe Photoshop settingkeeda wax looga bedelo. Photoshop marka qaab noocaan ayay usoo baxaysaa wajahada koowaad ama qaabka usoo muuqanaya qaab noocaan ayay usoo bixi doonaa. marka soo furtid Adobe Photoshop waxa lagu soo dhaweyn doonaa home screen baa ku soo bixi doonto taasoo ku dhahayso ku soo dhawaawo waan ku faraxsanahay inaad halkan joogtid. Calaamadda geeskaas marka aad ku dhufatid oo loogada hadaad ku dhufatid waxay ku geey doontaa gudaha ay ku geey doontaa qaybtan ay ku keeni doontaa. Okay, marka waxaan bedelaynaa interface-ka qaabka usoo muuqanayo colorska waxyaabaas baan bedeli doonaa. Waxaan tegaynaa marka edit ayaan tegaynaa. Waxaan kasii doonaa falaarta hoos ayaad u bixi doontaa. Falaartan hoose ayaad kale ku siinaysaa ilaa ka imaanaysid meesha ku qoran tahay preference. Preference marka waxay ku furi doontaa dialog box kaleeto. Marka waxaan ku dhufanaynaa kan koowaad ee ku qoran tahay general ayaan ku dhufanaynaa. Generalka marka qaab noocan ayuu kugu soo bixi doonaa. Wax badan ma ka bedeli doonaa marka kan. Waxaan ka bedeli doonaa disable home screen oo kaleeto. Home screen ama shaashada in lagu soo dhaweeyo anaga ma baahnin disable ayaan iska leenahay waan iska xiri doonaa. Waayo waxaan u baahanahay Adobe Photoshop markaan soo kacsanaba si automatically inay noo keento qaybta maxaa la yiraahdaa gudaha inay noo soo gelisaan rabnaa. Uma baahnin marka home screen iyo waxaas uma baahnin disable ayaan iska saareynaa. Qaybta ku xigta use legacy new tab qaybta ay ku qoran tahay use legacy new document interface-na qaybtan haddii aad isticmaalaysid oo kaleeto haddii waan arkaynaa qaabka oo shaqeyso ayadana waxa waaye markii maxaa la yiraahdaa Adobe Photoshop markii aad isticmaalaysid oo kale new markaad isticmaalaysid ama control n markaad dhahdid Photoshop markaad soo furatid qaab noocan ayuu kugu soo bixi doonaa maxaa la yiraahdaa control n keeda ama new document markaad sameynaysid waxaa kuu soo bixi doona tabkan weynka ayaa kuu soo bixi doona kuwa marka haddaad u baahan tahay firshamadii horeeto ama kii yaraay oo yariiska ahayo hore haddaad u baahan tahay calaamadda meeshaan tigta saar use legacy new document dooro. Okay, kuwan kale marka wax ma ka taabanayno anu maana marka qaybta interface-ka marka default-iga wuxuu ku yimaadaa gray color colorka default-iga uu ku yimaadaa waa colorka dameeriga. Waxaan ka dhigi karaynaa colorka madowga ayaan ka dhigi karaynaa sidoo kaleeto dameeri biyaha ayaad ka dhigi karaysaa sidoo kale colorka cadaanta halahan marka afartaas color ayaad ka dhigi karaysaa mid kale ayaad ka dhigi karaysaa. Qaybtan kale haddaan imaano ay highlight colorka ku qoran tahay hal color oo kaliya ayaad haysataa iyo maxaa la yiraahdaa kan default-iga iyo hal color kale ayaad haysataa. Default-iga marka waa maxaa waaye gray waa light gray waa marka haddii aad u baahan tahay colorka buluuga ayaad ka dhigi karaysaa marka highlight qaybtan ayaad isbedelaysaa. Okay, inta haddaad u baahan tahay color screenka caadiga markii hadda ma arki karaysid waayo markii document uu ku samaysan document cusub uu ku samaysan yahay ayaad arki karaysaa ama uu ku soo kacsan yahay ayaad arki karaysaa. Marka u baahan marka sideeda caadiga default-iga ayaan ku deysanaynaa qaybtan animaana marka qaybta saddexaad ee workspace-ka ayad waxaan ka bedeli doonaa oo kaliya large tabs uma baahnin maxaa la yiraahdaa tabs waaweyn anaga uma baahnin tabska marka dhankan ayaad ka arki karaysaa marka. Okay, marka calaamadda ka qaad waxaad aragtaa inuu noo yaraaday tabska ama maxaa la yiraahdaa daaqadaha inay noo yaraadeen. Okay, wax kale ma ka bedelayno workspace-ka. Toolska ayadana wax ma ka bedelayno waxaad imaadaa qaybta file handling ay ku qoran tahay. Marka qaybtan maxaa la yiraahdaa qaybtan waxay ka bedelaynaa meesha ay ku qoran tahay recent files list. Qaybtan marka waxaan ka bedelaynaa inta file maxaa la yiraahdaa recent. Marka recent-igan haddii aad u baahan tahay dhawaan marka waxaad isticmaashay ayuu kuu soo bandhigaa dhawaan document-yaasha aad isticmaashay kuu soo bandhigaa. Marka qaybtan muhiim waa haddii document-yaal badan aad ku shaqeynaysid oo kaleeto aad u baahan tahay document-yaashaas dib inaad usoo kacsatid
qaybtan marka muhiim waaye anaga waxaan ka dhiganaynaa 100 document oo kale ayaan ka dhiganaynaa waayo documentyaal badan baan ku shaqeynaa so marka waxaan ka dhiganaynaa documentyaal ilaa 100 documents recent markaan tago ilaa 100 documents camal ayuu soo qaban doonaa 100 document oo ugu dambeysay oo aan isticmaalo ayuu ku soo bandhigi doonaa 100 marka meeshaan waxa waaye wuxuu ku soo bandhigi doonaa dhawaan inta isticmaashay marka 20 document 20kii document oo ugu dambeysay ayuu ku soo bandhigaa sida defaultiga marka in ka badan ayaan u baahanahay ugu yaraan waxaan leenahay documentyaal badan baa ku shaqeynaa ilaa 100 document soo bandhig okay 100 ayaan ka dhiganaynaa marka qaybta kale to performance-ga marka inta muhiim ah marka qaybtan hadii maxal raahdaa RAM-kaada uu badan yahay oo kale to anaga waxaan leenahay oo kale to Photoshop markaan isticmaalno programmi kale to RAM-keena haasiinin waxaan leenahay RAM-ka badana igu bixi RAM-keyga badana ha isticmaalo Adobe Photoshop badana marka waxaan leenahay 80% 70 inuu ku yimaado ayaan jeclahay marka waxaan leenahay 80% easy maxal raahdaa Adobe Photoshop RAM-ka ha isticmaalo 80% Adobe Photoshop ayaa isticmaali doona RAM-ka inta soo harto oo 20% 20% ka soo harana waxa isticmaali doona programmada kale ayaa isticmaali doona laakiin 80% waxa isticmaali doona Adobe Photoshop animaana marka qaybta kale to scratch marka ayada wuxuu ku soo bandhigayaa maxal raahdaa documentiga meesha ka kacsan yahay documentigana hadda waxa uu hayaa wuxuu ku jiraa Adobe Photoshop marka programkeena dhan meesha ka kacsan yahay waa local disk sida ayuu ka kacsan yahay ama partition sida qaybta windowga ayuu badanaa kala halkaas ayuu ka soo kaxay qaybo kale hadaad haysatid waa dooran kareysaa muhiim ah aan kala gudbeynaa marka qaybta markaan imaano ugu dambeyso qaybtan marka waxaan imaan doonaa type-ka ku qoran tahay type-ka marka aad iyo aad buu muhiim u yahay hadii maxal raahdaa luqadda Carabiga oo kale to adigoo meeshaan bedelin luqadda Carabiga ma qormayso so marka qaybta marka default wuxuu ku yimaadaa East Asian ayuu badana marka ku yimaadaa default wuxuu ku yimaadaa East Asian so marka waan ka bedelinaa TikTok waxaan saarinaa Middle East luqadda marka Carabiga ayaa noo doonayda markii maxal raahdaa East Asian uu ku qoran yahay farta Carabiga ma isku darsoomeysa oo wuxuu kala qormayaa gooni ayuu kala qormayaa marka Middle East dooro luqadda Carabiga Middle East dooro okay inta kale wax ma ka bedelena marka okay ayaan leenahay waxyaabaha qaar marka preference marka wax ka bedeshid waxay u baahan tahay Adobe Photoshop in restart ku sameysid dib aad u soo kicisid markaasoo isbedelka saxda saarmi doona okay waxaad u jeedaan si automatically inuu hadii soo kacay marka Adobe Photoshop aan soo kacsaday si automatically ayuu programka u soo kacay waayo ma baahnayn marka home screen uma baahnayn anaga so marka home-ka dhan uu naga bixiya hadda maxaa raahdaa soo dhaweynta iyo waxyaabahaas bay ahayd haddaan fiirino hadii sidoo kale waxaan fiirinaa marka control in haddaan dhahno ama new marka waxaan isfiirinaa new maxaa raahdaa documenti markaa sameynaysid waxyaaba iska bedela control in haddaan dhahno waxaad aragtaa inuu haddana soo baxay dhaalo bokosyadii horeeto oo ay ku shaqeyn jireen CS6 iyo programmadii ka horeeyay ayaa noo soo baxay kan ayaad u baahanta marka waad isticmaali kareysaa marka haddaad u baahan tahay soo kale haddaad u baahan tahay kan update-kana meesha horeeto ayaa tigta kasoo saareysaa isla meesha aad ku laabanaysaa tigta ayaad ka qaadaysaa kadibna okay ayaa leedahay waad isticmaali kareysaa marka waxaan rajeynayaa marka inaad fahamteen waxaa inoo balana darsiga xiga intaa ku kulmi doono darsiga mid ka xiisa badan waxaan idinkaga tegaa saas iyo nabadgelyo والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.